السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك أصحابتي هذا قالوا رجيت مرة واحد لا يعي جمعة ونكسة. by the way واحد على سنة لها بل إن كان سيرويش كوده كأنه كجريان وصدق قضاء من كهرباء. أرنتا سوماليلاند سوماليا يا أرنتا تايوان يانا كهلا حكينا أسرنا for the 10 years كان سنة كان صنع حكينا دوننا هنا نسرنا وهو قضاء very important. marka waxaan la wadaagi lahaa horta qodobka koobaad ee Somaliland iyo Soomaaliya horta waxa muhiim ah Somaliland ma aha wadan gooni goosad ah waxa la raadaa wadan si sharci darro uga go'ayo wadan kale laakiin hadii maanta tusaale ahaan aniga shaarkayga iyo ina kale qof kale shaarkiisa aan isku darsano waxay midab kala soo baxay midabkii waan wada leenahay macnaheedu weey hadii midabkii aan wada lahayn isagu intuu la soo baxo oo iraahdo midabkaygii waxaan u qaybinayaa shan dabeedna midabkayga shanta kamid ah ay adiga isku xuquuqtii waa impossible waa waxaan macquul ahayn marka Somaliland iyo Soomaaliya waxbay isku darsadeen waxay haayeen laba gobol oo siman oo wax isku darsaday oo la dhaw waqooyi iyo koonfur marka Somaliland 26 June 1960 horta wax Somaliland wax Soomaaliya la dhameeyay jiray waqtiga Somaliland jirtay taa horta in la isla gartaa waa shay very important Africa xuduudaha kala socota Ethiopia Kenya noqotay Djibouti iyo Somaliland Somalia iyo hadii Africa amba wadana ku socota waxa weeye waa shirkii Berlin 1800 iyo Africa 18 Berlin shirkii waxa lagu shiray in Africa xuduudaheeda lagu sadkareeyo sidii intii guumaysto ka tagay marka xuduudaha Somaliland waa international border waa xuduud caalami ah oo standard oo UN tayaala marka maadaama Somaliland wadanka markii hore xorta ahaa idinku kuwa Italian ha kuwa Somaliland oo isku darsadeen sababta isku darsadeen waxay ahayd waxa laga garan karo horta calanka Soomaaliya ee buluuga ee lagu midoobay ee hargeysa laga taagay muhiimadiisu wuxuu ahaa shan xidig cad oo dhexda kaga taala waa shantii Soomaaliya waa Djibouti NFD DDSI Soomaaliya iyo Somaliland waa shanta weeyaan haddaba riyadii shanta Soomaaliyeed yaa ka baxay wixii lagu midoobay ee Somaliland iyo Soomaaliya ma Somaliland baa ka baxaysa ma Soomaaliya ka baxday oo reer Soomaaliya ka baxday waayo waxa lagu midoobay in la sameeyo Jamhuuriyadda Somali Republic ama in la raado Somali Republic in la sameeyo ayaa lagu midoobay taa maadaama lagu midoobay Somali Republic Soomaaliyada ka baxday koonfuriyada ka baxday wax la baxday Soomaaliya maxaa diiday in reer Somaliland in waqooyiguna la baxaan Somaliland maadaama Somali Republic lagu midoobay ay reer koonfurta la baxeen Soomaaliya waa muhiim reer Somaliland inay la baxaan iyaguna Somaliland waa qodobka labaad waa qodobka koobaad qodobka labaad ee reer koonfurta uga baxeen midnimada waxa kamid ah waxay qaateen heer federaal iyaga shan bay isku qaybiyeen tusaale ahaan imika xidig oo astaanta qaranka ee Soomaaliya waa laba shabeel waa waqooyi iyo koonfur hadii la yiraahdo shabeel labadii shabeel isku tagay shantii Soomaaliya raadinay hadii la yiraahdo mid baa intuu isku qaybiyo shan wala baxo Daasad-laan iyo Bisad-laan iyo Jubbaland iyo Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo koonfur galbeed intuu la shan baa isku qaybinaya shanta mid kamid ah ay reer waqooyi isku xuquuq yihiin waxyaalaha horta aniga maskaxda ka bixi waayay mid kale reer Somaliland taas waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee muhiimka waxa weeye la isla ogaado horta kuwan midnimada naga aaminsan ee reer Somaliland ee jooga Soomaaliya horta Soomaaliya maxay ku joogaan in la isweydiiyo muhiim ma waxay aaminsan yihiin fikradii reer waqooyiga ay reer koonfurta kula midoobeen ee ah raadinta shanta Soomaaliyeed ee ahayd in laba gobol oo siman ay isku yimaadeen ma taasay aaminsan yihiin reer Somaliland markii hore ay Soomaaliya ku tageen kuwa Somaliland sheeganaya Muqdisho jooga mise waxay aaminsan yihiin heer federaal ah inay shan la isku qaybiyo mid kamid la yiri Somaliland bay isku xuquuqiyiin horta waxay aaminsan yihiin wax noocee waag federaalkan ay leeyahay ka shaqeynana kuwa midnimada aaminsan reer Somaliland sheeganaya federaalka xakil lagu codeeyay federaalka waxa ku yimaada reer Somaliland federaal raali kama yahayn meel lagu codeeyay may ogeyn reer waqooyigu sidoodii bay isku haystaan hadii reer koonfureed ku qaateen federaal maxaa u diiday reer waqooyigu inay qaataan republic ama jamhuuriyad inay noqdaan horta waxyaalaha muhiimka in la isweydiiyo ay muxuu ahaa ay very important ka tahay taas waa qodobka kale iyo Soomaali waxay dal ugu jirtaa in la qaato heerkan la yiraahdo midowga Yurub oo kale in passport muxuu ahaa passport isku mid ah calan isku mid ah ciidanka la sameesto ciidan sida NATO oo kala oo loo bixiyo Somali national Somali interest waxa weeyaan adu ciidamo ka shaqeeya muxuu midnimada ummadda Soomaaliyeed oo ay ku jiraan Djibouti iyo Somaliland waxa la midayn karaa warshadaha waxa la midayn karaa ganacsiyada iyadoo Soomaalida aan la oran karin hal dal ha isku noqdaan hadii tusaale ahaan wada lagu jaro
تي كشلايدي أحد يحل ميدايو تتحول وجه هذا الطريقي اللي أقول ما هدي دب لا راعون وحويا تيريا ريسك تبع صوص عندنا دب هالارا مركب مهمة وحويا نصدق كيسنا الخسارة من ماذا وحكي دو Somali على تيماتو برهي كونفراد كوريس Somali لما كان فكرة ديجا كان من ماذا برهي كونفراد يدون كنا وحكي دوين من ماذا كان أو Somali تقبل بعدين إنسان أول كي هراء تيريا ريسك هراء أنا وحن دون إني Somali لا سكوك لكن تاس impossible بينهم marka idin kuna waa inaad keentay fikrad taa ka duwan oo ah sida Soomaalida prosperity ku gaadhay waxay ku gaari kartaa inagoo xidida isku furana passport caalam gooniyo sida midowga Yurub inagoo wada dhaqano oo dadkeenu isku wada socdaan oo xoro cashuuraha aan la iska qaadin oo ilaahay dekedahan uu siiyay iyo macdanta faraha badan dhalinyarada looga faa'iideeyo maanta Ethiopia inagoo midoo ciidan gooniyo samaysanay Ethiopia maanta ciidamada ilaa badda samaysanaya kuma soo hiratay wadda Soomaaliya waxaan aaminsanahay Somaliland maanta hadii la ixtiraafo waa burburka Soomaaliya weey marka waxaan oran lahaa bal 10 yearski wax ka duwan reer koonfureed kala imaadaan marka qodobka asaas ku soo koobaya kan kale ee Taiwan